Mas'uuliyiin soo hogaamiyo maamulka gobolka Shabeellada Hoose iyo Mabageeka gargaarayo deerseen ka dhawaad 1500 qoys oo ay saameyntii fatahaadii isu soo biwabay Shabeelle. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Mudane Ibrahim Aadan Cali Najah oo soo horkaay wafdiga degdeg deersii qoysaska ka dhagan degmada Afgooye. Agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo xildhibaan Cali Afgooye yaa sheegay in degdun walbadan iyo inta doonta dadka lanqeybay. Ilaahay mahadiisa inay maanta wasaaradda horkacayso deeqda ay bixinayso boqortooyada King Salman oo loogu talagalay degmada Afgooye 3000 oo qoys 1500 oo kamida ina maanta aan bixinayno ilaahay mahadiisa waxaana leenahay inta qaybisay inta keentaba ilaahay ajri xasanaad Allah idinka siiyo waxaan rajaynaynaa inta dhimanayna bir dhameystirno oona kamid guddiga loo xil saaray fatahaada wabiga ka dhacday gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan degmada Afgooye annagoo ka turjumayno oo dawladda federaalka uu madaxweyne ka yahay Maxamed Abdullaahi Farmaajo ra'iisul wasaare Khayre iyo gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal annagoo dawlad ahaan ka turjumayno waxa maanta ilaahay mahadiis noo suurta gashay inaan soo gaarsiino degmada Afgooye raashin oo ka kooban wax badan marka raashinkaas oo hadda la soo gaarsiiyay ay tiradiisa la eg tahay 1500 qoys oo 1500 qoysna birta la keeni doono insha Allah iyo ama bir dambe. Gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose Ibrahim Aadan Cali Najah yaabaan ku horeentiisa uu ku mahadnaqay madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Mudane Cabdiasiis Xasan Maxamed Laftigaran sidoo ismar walba uu saheeyo gargaarka faraw iniyo ku warhayaan xaaladda shacabka reer Koonfur Galbeed Soomaaliya. waxaan kala rabaa halkaan inaan uga mahadceliyo madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed oo xiriir joogto ah ay runtii la sameeyay dhammaan deeq bixiyaasha iyo dawladda federaalka si dadka halkaan jooga gargaar loo soo gaarsiyo waxaan rabaa inaan halkaan uga faa'iideysto inaan u mahadceliyo guddiga gurmudka fatahaadaha qaranka kan Koonfur Galbeed iyo xildhibaanada qaranka oo runtii dadaal xoog leh ka geystay in degmadan la soo gaarsiyo gargaarka waxaan rabaa inaan idin sheego dawladda Soomaaliyeed iyo maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya muddadii ay idinka maqanaayeen shacabku waxaan rabaa inay ogaadaan waxa laga leeyahay maqnaashaha waa hal shay dawladda haday idin la joogto waxay idinka difaacaysaa kooxaha nabadiidka ee habeenii maalin u ooman dhiigiina inay si bilaash ah ku daadiyaan markay idinka maqan tahayna waxay idinkugu maqan tahay inay adeeg bulsho ay idin soo gaarsiiso gargaar leh oo caafimaad leh oo waxbarasho leh markii uu ku horeeyay maamulka gobolka Shabeellada Hoose sadeegno oo soo deersi shacabka ka dhagan gobolka Shabeellada Hoose Maxad Abduqaadir Abdiraxmaan warbaahinta Koonfur Galbeed Baydhabo.